dadku waxay ugu yeeraan taksiilaha taajirka waxaan ahay ninka kaliya ee Soomaaliyeed oo ku taksileeya gaariga la yiraahdo Rolls Royce Ghost. magacayga Maxamuud Axmed Diiriye Guled baa la yiraahdaa. wadankan waxaan imid 1989 qaxooti baan ku imid. alxamdulillah school baan ka galay, college baan ka galay. 1996 ayaan shaqadan taxiga soo galay. marka alxamdulillah intaasoo company baan maxaa u soo shaqeeyay. imikana maanta company baan iska leeyahay. alxamdulillah ilaahay baa ii fududeeyay inaan maanta anigu yeesho gaariga Rolls Royce qiimihiisu uu yahay maxaa 280,000 oo pound. customer waxay madaxtooyo boqortooyo oo carabta ka timid footballayaal oo u ciyaara tiimka Premiership-ka ah oo kamid ah Crystal Palace kabtankooda kabtankii Ghana Michael Essien, Steven Appiah. maalintii waxaan ka qaadaa 1,114 ayaan ka qaadaa 12 saacadood. airportkana waxaan ku tagnaa 200 oo gini. kalarka buluuga waxaan ku doortay Rolls Royce baan u tagay Manchester. marka waxaan ku yiri calanka Soomaaliyeed baan u geeyay. gaari waxaan u baahanahay calanka Soomaaliyeed oo kale oo eg. markaas kan gaarigan baa la soo saaray gaarigan buluuga sidii waan ku doortay yani waan ku faano inaan qof Soomaali ahay. success-kayguna waa Soomaalinimo. ilaahay baa mahad leh iyo waalidkii soo dhalay iyo wadankan ka imid iyo dadkan ka dhashay. marka alxamdulillah taasaan ku faanaa. customer-kaygana way weydiiyaan all the time xageed ka timid. nin Soomaaliyaan ahay. dadka Soomaaliyeedna aad iyo aad bay igu taageereen oo support fiican baan ka helay Soomaalida London joogto oo dhan. alxamdulillah waxaa igu yaabka badnaa oo markaan istaago oo meelaha Central London oo kale inay dadka anoo gaarigayga ku jira Rolls Royce Ghost oo astaanta calanka Soomaaliyeed anoo iska fadhiya inay sawir ila dhacaan. booliska Ingiriisku way joojin jireen bariga hortaan gawaadhida yaryar wadan jiray. iminka maadaama Rolls Royce Ghost wato ima joojiyaan oo markaan traffic light meelahaas kaga nimaadno intay gacantii taagaan iyagoo smile garaynaya yani oo faraxsan ayaan istaafnaa. waxaan